halkan waa Qowl Media TV. guddiga la socodku iyo hirgelinta dastuurka isagoo kaashanaya guddiga madaxa bannaan wuxuu soo qabtay hawl muhiim ah inkastoo uu la kulmay caqabado joogto ah oo aad iyo aad u fara badan kuwaas oo iskugu jira caqabado siyaasadeed kuwa farsamo iyo kuwa maaliyadeed intaba iskugu jira guddigaas haddana wuxuu ku guuleystay inuu soo dhammaystiro waajibaadkii dastuurka uu xil saaray maantana uu idin soo hordhigay habraaca ansixinta qaraarka dastuurka ku meelgaarka 11 qodob ka kooban inuu maanta idin soo hordhigo haddaba caqabadaha maanta horyaal dastuurka waxaa ka mid ah oo baarlamaankan tobnaad horyaal waxaa ka mid ah kow isfaham la'aanta siyaasadeed ee ka dhaxaysa madaxda sare ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed waa hal caqabad ee baarlamaanka federaalka ee dastuurka horyaal weeye caqabada labaad waxaa ka mid ah la tashi la'aanta dastuurka ee bulshadii Soomaaliyeed la rabay in la wada gaarsiiyo caqabada saddexaadna waxay noqonaysaa arrimaha maaliyadeed ee loo baahnaa in lagu gaarsiiyo dastuurku inuu ku hawlgalo caqabada afraad waxay tahay muddaxileedka baarlamaankan tobnaad u hartay oo gabagaba ah iyo shaqada la rabo in la qabto oo ah mid aad iyo aad aan isdabooleyn ah caqabada shanaad waxay ahayd mid la daaweeyo laga soo gudbay oo daawadeedii la helo ahayd khilaafkii labada aqal golaha shacabka iyo aqalka sare oo ayada daawadeedii la helo ilaahayna soo dhaafiyay oo aan rabno inaan madaxda guddoonka labada gole iyo labada golaba inaan iraahdo mudane guddoomiyaal hambalyahan raba inaan idin iraahdo mudane yaal marwooyin baarlamaankii tobnaad oo 6 bilood u hartay July 2020 oo 6 bilood ka harsan tahay markii December laga saaro iyo waxa is horyaal walaalayaal mudanayaal marwooyin baarlamaanka sharafta leh gabdha iyo wiilalba waxaan horyaal dastuurkii halkan laba arrimood baan horyaal guddoonku raallahayga ahaado haddaan ka hadlo waxyaabaha in adinku sugayn waxaan horyaal laba arrimood baan horyaal labada arrimood waxay tahay in baarlamaanka Soomaaliya baarlamaankan tobnaad inuu ku guuleysto inuu Soomaaliya ka bixiyo ku meel gaarnimada oo uu ka bixiyo ku meel gaarnimada oo dalka dastuur dhammaystiran inuu dalka u sameeyo oo uu helo sharaf iyo karaamo iyo cisi shacbiga Soomaaliyeedna uu ku yeesho annaguna aanu intayadan aanu taariikh ku yeelano inuu helo bilad iyo baag dahabana ummadda aan ka galno iyo haddii aan ka gali weyno waxa ku xigaa waxay tahay hadda waxa aan galayno waa loogyahay waa buug waa dhinaca kale ka galayna marka sayse sidaas noogu dhicin maadaama aan ay guddoomiyihii guddigan loo xil saaray hawsha ayada ninka ugu natiijo xun anigu inuu noqdo ma rabo inaan noqdo waxaan soo jeedinayaa oo walaalahayga guddoonka u soo jeedinayaa inta aan buunku nagu dhicin waxaan baarlamaanka Soomaaliyeed u soo jeedinayaa shacbiga Soomaaliyeedna aan maqashiinayaa kalfadhiga halkan lixaad inaan la xirin ilaa shacbiga Soomaaliyeed dastuur uu waafaqsan yahay loo ansixiyo inaan la xirin oo ilaa uu dhammaado halkan dastuur laga ansixiyo inaan la xirin inaan la xirin ilaa dastuur halkan lagu ansixiyo
haddii kale maalin walba waxaan ku jiraynaa dastuur doorasho dadban doorasho jiifta mid istaagan mid tuur leh mid qaloocan mid fadhida mid jiifta ayaa lagu jirayaa Soomaaliya aan tuurta iyo dhabarjabka iyo hooga iyo baan ka bixinaa leh walaalayaalow maanta idin horyaal maanta idin hortaal war maanta bidaas yeela ilaahay idin ku dhaarshay maanta yeela halkan nagala socoteen waa Qowl Media TV warar xaqiiqo ah saad u hesho wehel ka dhigo Qowl Media TV like subscribe aragtidaadana waa muhiim shartana ha hilmaamin mahadsan